بسم الله السلام عليكم رمضان وناكسن برنامج كيني بدل نلاشة هذا وحان شالس فعنا وشيكيسن حق بدن وداعيني وحنا سوري قلين كلا إن عن حدك نقانا نلاش كصالح موقعنا ما تعرفنا إن كذا شيكيسن ما دام معلمان وآد نوسامي أو نلاشة إنه يدقدقاق إنه الرياضة على هن هكذا تكون نقضي عذر كسف مركز كورونا فيروس waxaan rabnaa ka wada sheekeysano talaabooyin noo suura gelin kara in cibaadadeena ay kobacdo shakhsiyadeena isbedel sameeyso aan hagaajino maalmaheena inagoo xaafada joognana aan sameeyno wax soo saar tayo leh waa muhiim qofku xaalad walba uu ku jiro ama meel walba uu joogo in uu heli karo talaabooyin suura gelina inuu noqdo qof wax soo saar leh oo noloshiisa tayo macna ku soo biirin karta laakiin haddii xaaladu adkaato macnaheedu kama dhigna in talaabo kale aadan qaadi karin mana jirto sabab aad marmarsi iyo marqaati uga abuurto xaaladaha qaar balse waxaa jirta sabab aad uga abuuri karto wax soo saar iyo tayo nololeed noloshaada in aad tayo nololeed yeelataa waxay ku sameynaysaa shakhsiyad gaar ah oo macno weyn sameysa waxaana la dhahaa wax kaliya oo noloshaada isbedel weyn ugu soo kordhin kara waxa tahay inaad taqaano talaabada aad wax soo saar ugu sameyn karto noloshaada inta aad xaafada joogto waa saacadihii waxba iskama bedelin balse shaqooyinkii ayaa soo yaraado xaafadii ku soo koobmay si inta xaafada aad joogto uga faa'iideysto waxa u baahan tahay number 1 in aad taqaan horta ujeedkii aad u baxaysay aad magaalada u aadeysay ama shaqo u aadeysay ama waxbarasho u aadeysay ama noloshaada kale u maareeynayay haddii aad taqaano wali oo aad og tahay waa alxamdulillah balse haddii aadan ujeed u dhaqaaqaynin waa caqabad kale noloshaada haysata oo saameynaysa marka number 1 ujeedkaaga aad og tahay alxamdulillah hadaadan ogeyn waa inaad ujeed dhab ah degsataa maxaa rabtaa adiga maxaa u baahan tahay maxaad ugu aadeysay magaalada ama shaqo ahaan waxbarasho ahaan shakhsiyad ahaan dantaada horta waa inaad ogaataa number 2 marka xaafada joogto waa inaad ujeed gaar ah degsataa awal sabab baa u bixisay hadeerta aad joogto maxaa qaban kartaa inaad isweydiiso maxaa qaban kartaa just waxaa qaban karto inaad qodato waxaa qaban kartaa waxaa aqrin kartaa buugaag badan oo aad ku riyoonayso inaad akhriso waxaa qaban kartaa waxaa qori kartaa sheekooyin badan oo aad ku fikirayso inaad samayso buugaag badan oo aad ku riyoonayso inaad qorto family badan oo aad jeclayd inaad la xiriirto waxyaabo badan aad qaban kartaa marka number 1 ogow number 2 daily-gaaga ama maalintaad markay kuu bilaabato adoo xaafada joogo waa inaad number 1 samaysataa daily routine wax la dhaho shaqo joogto ah oo maalin walba aad sameynayso oo lagu yaqaan aroortii marka soo toosto aad cibaadaysto xiriirka Allah subhanahu wa ta'ala aad wanaajiso inaad sameysto amal kale joogto ah inaad book akhriso inaad naftaada la hadasho inaad qorto talaabooyin ama shaqo hadii actions aad qaado aad noloshaada productive soo saarayso marka number 1 taye oo qurxi morning routine-kaaga aroortaada qurxi cunada cunayso tayadeed ka fikir hadda bil ramadaan lagu jiraa cunno ma cuneyno balse inaad ka fikirtaa wax maskaxdaada galayo dahabkii diamond waa labada shay ugu qaalisan dunida balse waxa ka qaalisan maskax iyo qalbi marka inaad taqaana maskaxda iyo qalbigu wax galaya messageska iyo hadallada iyo dareenada iyo balanqaadyada waxa soo dhan ay ku soo gelinayso maskaxdaada iyo qalbiyada inaad controlshaa oo wax tayo leh u soo gelisaa number 2 waxa u baahan tahay waxay tahay si inta xaafada joogto aad productivity badan u sameyso in aad diirada saarto hal shaqo dhibka aan naqaan dhalinyaradana waxay tahay markii aan rabno inaan guuleysano waxaan isku dul furnaan kumanaan shaqo mar waxaan qabanaa shaqo oo riyadan ku saabsan mar shaqo saaxiibkan mar shaqo kale just iska daaf waxaas diirada saar markii aad focus sameyso waxaad qabanaysaa shaqo badan waxaa jirto maamaha carabiga oo dhahaysa al-halul qof yal muwaajah halka cabsidu waa illa wajah macnaheedu waxay ka dhigan tahay cabsi kaliya ma aha shaqo walba halkeeda aad ugu guuleysan karto waxay tahay inaad wajahdo marka inaad focus sameysataa oo diirada aad saartaa hal shaqo halka shaqo diirada marka saartana wax soo saar macaan oo qurux badan oo tayo leh ay soo saareysaa dadkan ay kaada fadhiisan doonaan ku dhihi doonaan wow shaqadaas si qurux badan oo qoto kugu bogaadina marka talaabada labaad waxa diirada inaad saarto talaabada saddexaad waxay tahay inaad kala muhiimad siiso shaqooyinkan saaka marka soo toosto morning routine-kaaga sameysato shaqooyinka badan ku horyaalo muhiimaday ku kala leeyihiin haddii book akhris iyo family inaad la hadasho ama family ka caawiso ama hawl kale aad qabato dhammaantood waxba muhiim ah waxaas muhiimka inaad ku mashquushaa aad loogu baahan yahay sida caadiga qof walba waxba si gaar ah muhiim ugu ah aniga waxba muhiim ah
adigan i daawanayo waxbaa si gaar muhiim ku ah. Marka number 1 wax ku muhiimka ina ogaato. Marka talaabada saddexaad marka wax focus saarto shaqooyin kala aragto inaa qabato muhiimada kee ku leh inaa ogaato muhiimadaas kaas aad daba raacdo. Marka muhiimada daba raacdo then way fududaanaysaa in aad macno weyn ka samayso iyadana, sababtoo ah shaqooyinka kala iska xirtay weli waxay daba soconaysaa taas focuska ama diirad saaridda. tan ugu dambayso laga rabo inaad samayso waxay tahay marka aad aroortaada morning routine qurux badan ku bilaabato wax diirada saarto waxna aad muhiimad siiso intaas waqtigii ayaa ka faa'iideysto waad maareysay oo waqtiga kumaadan bixin wax maala yacni waxa ugu dambeeya waxay tahay habeenkii markii la gaaro shaqadiisa qurux badan aad u soo dhamayso inaad nafsadaada la dabaaldegto, sababtoo maalin qurux badan ayay soo qaadatay, maalin aan inaba caadi ahayn ayay soo qabatay, shaqo aan suuragal ahayn oo maalmaha kale aysan qaban jirin ayay maanta qabato. waa inaad naftaada la dabaaldegtaa oo aad u mahad celisaa oo aad siisaa abaalmarin aan inaba caadi ahayn, sababtaa nafta abaalmarin ayay kaaga baahan tahay. markaad la dabaaldegto nafta aad dhiirigeliso waxaa kaloo lagaa rabaa inaad feedbackgaaga fiiriso. maanta wixii aad qorshaysatay maxaa suuragalay wixii aan suuragalin inaad qorato, haddii biri aad qaban karto aad qabato, haddii ay tahay wax laga gudbi karana aad ka gudubto. just intaa inaad samayso. inta haddaad samayso wax soo saarka maalintaad intaad xaafadda joogto waxuu noqonayaa mid high level ah. waxaad noqonaysaa qof xaalad walba uu ku jira ka faa'iideysan kara. xaaladaha iyo duruufaha kugu dhacaya dhammaantood ma aha wax sabab u noqon kara inaad noqoto fadhiid, balse waxaas adiga ayaa noqon kara qof sababta u noqon kara inaad noqoto fadhiid ama inaad noqoto qof hor u socda. waana intaas sirta dad kale aad kaga duwanaan karto inaad noqoto qof fadhiid ah ama inaad noqoto qof hor u socda, sababteedana adiga keliya ayaa leh. aad mahadsantiin. maanta halkaan ayaan kusoo gabagabeynayna barnaamijka bedel noloshaadan uga hadlaynay tallaabooyinka noo suuragelinay intaan xaafadda joogno inaan noqono dad wax soo saar leh. haddii aad xiiseynayso barnaamijkii ka badan Rukma Channel Kasim Todwal Channel lana wadaag saaxiibo qaybta hoose commentiga nagula soo wadaag aragtidaada. haddii ay jirto talo fariin dhiirigelin iyo su'aal aad qabto waxay gula soo wadaagi kartaa gmail shaashada kaaga muuqda. mahadsanidin. Ramadaan wanaagsan. anigu Cabdi Fataax Qaasim Cali.